ilaalinta nadaafaddu waxay door muhiim ah ka qaadanaysaa horumarka bulshada qaybaheeda kala duwan gaar ahaan dhinacyada caafimaadka olole nadaafadeed oo ballaadhan kaasoo iska kaashadeen hay'adda wadaniga ee Candlelight hay'adda Oxfam iyo sidoo kale dowladda hoose ee degmada Burco ayaa maanta laga fuliyay toga dheer ee magaalada Burco ololahani nadaafadeed ayaa ahaa mid qashin xaadida isla markaasina lagu nadiifinayay goobaha qashinka la dhigay ee ku yaala bartamaha toga Burco barnaamijkani ballaadhan ee ololaha nadaafadda caafimaadka ayaa socon doona muddo 2 maalmood kaasoo ay wadayso hay'adda wadaniga ee Candlelight mudane Maxamuud Saciid Cadad waxa uu ka mid yahay saraakiisha sarsare hay'adda wadaniga ee Candlelight waxaan u faahfaahin ka bixinayaa mashruucani nadaafadinta oo socon doona muddo 2 maalmood isagoo sidoo kale tan fariin u diray shacabka gobolka Togdheer halkan oo ah tooxi weynaa ee magaalada Burco waxa hawlgal ay iska kaashanayaan dawladda hoose ee magaalada Burco iyo hay'adda Candlelight oo kaalmo ka helaysa hay'adda Oxfam ay sameynayaan hawlgal nadaafadeed oo 2 casho ah oo maanta bilow ah hadii la ka dhigo hawlgalka nadaafadda 2 casho ujeedadiisu waxa weeye sidii horeba marar badan aan u sameynay in dhammaan inta laga gaari karayo 2 casho oo shaqaale badan dabcan la gelin doono hawlgal weyn oo nadaafadeed lagu nadiifiyo magaalada inkastoo magaalooyinka ugu nadiifsan ay ku jirto haddana waxa weeye dawladda hoose mar walba waxay u baahan tahay isgarab taag hay'adda Candlelight iyadoo markaa mar walba og xiriir dhowna ay leeyihiin dawladda hoose waxay la shaqeysaa on markii koobaad ahayn in nadaafadda magaalada la dhiirigeliyo aad looga guro qashinka hawlgalkan 2 casho ah waxa dheer inaan ku wareejinay tool dhammaystiran oo ah kii lagu fulnayay hawlgalka nadaafadda lagu fulnayay dadkana fariintaan u diraya shacabweynaha reer Burco waxa weeye nadaafaddu waxay ka bilaabantaa qoyska gurigay ka bilaabantaa haddii qof waliba nadaafadda guriga iska hagaajiyo ta bulshaduna way hagaagaysaa waayo dadku waxay ka kooban yihiin qoysas u tagay sidaa darteed maalmahan dambe insha Allah bidnillahi kaliya waxaan rajeynayaa in dadka oo dhammaan ay noqdaan kuwa soo jeeda oo diyaarsan inaynu ku noolaano magaalo nadiifa bilicduna waxay ku jirtaa iyo caafimaadka bulshadaba in lagu noolaado deegaan nadiif ah geesta kale xogayaha fulinta dawladda hoose ee degmada Burco iyo xubno ka mid ah dadka ka agdhow agagaarka toga Burco ayaa hay'adaha Candlelight iyo sidoo kale Oxfam uga mahad celiyay mashruucani ma aha markii ugu horeeyay ee hay'adda Candlelight oo ay iyaga laftooda kaalmo ka helayaan Oxfam waxaan runtii dhowr jeer hore ayeen shaqadan hawlahan wada qabanay aad iyo aad baan iyagana ugu mahadnaqaynaa Candlelight iyo Oxfamba gaadiidka iyagan dawladda hoose iyo shaqaalaha dawladda hoose iyaguna waxay mar walba istaan bay u yihiin in ay ka shaqeeyaan nadaafadda guud ee magaalada Burco waa magaalo madaxdii labaad ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa weeye marka magaalooyinka loo eego magaalada ugu nadaafadda wanaagsan ugu bilicda wanaagsan waa Burco anaguna insha Allah ta'ala haddaan nahay maamulkii dawladda hoose waxaanu 24 saacadood heegan ugu nahay sidii aan uga shaqan lahayn nadaafadda iyo bilicda guud ee magaalada Burco mahmaha Soomaaliyeed baa waxay tiraahdaa gacmo wada jir bay wax ku gooyaan haddaanu nahay maamulka dawladda hoose kaliya haddaanu nahay annaga ku filan nadaafadii guud iyo qashankii ma aha runtii wax runa waxaanu mar walba u baahanahay oo aan iskarabtaag uga baahanahay oo inagala shaqeeyaan aan u baahanahay dadweynaha iyaga sharafta leh qiimaha iyo qaayaha leh oo iyaguna mar walba si hagarlaan noo garab taagan waxaanu ku sii wacyi gelinaynaa inay isku kaaya garab taagaan waxaan uga diganaa dadka laamiyada caadaystay sida qaalibka ayna dhigeen qashinka inay ka daayaan haddii se ka dayn waayaan waa imanaya ganaax iyo xadhkuba taa aad iyo aad ha looga digtoonaado dawladda hoose oo mahadna qabnaa maanta qashinka bay naga guraysaa oo mahadna qanaala yadii hay'adda dawladda hoose hay'adda Candlelight ayaanu mahadnaqaynaa naga xaadaysa qashinkii iyo qurunkii isku soo xoriyo hay'adda wadaniga Candlelight oo kaashanaysa hay'adda Oxfam ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxay gobolka Togdheer iyo deegaanada Soomaaliland ka waday mashaariic ballaadhan kuwaas oo ku aadan nadaafadda iyo fayadhowrka bulshada Khalid Bakayle fogaana raga xorta Star TV Burco.